wararkaas iyo waxa ka socda magaalada Jigjiga oo haddana wareysay mas'uuliyiin iyo khubaro gobolka arrimaheeda la socota ayaa waxa uu haatan ku bilaabaya bal wararkii ugu dambeeyay Faarax cabdinuur wararka ugu dambeeyay waxa ay sheegayaan geeri inay jirto idaacadaheennii hore kuma aanay jirin wax geeriya oo ma aanayna soo gaarin wararkooda laakiin iminka waxaa la sheegayaa in guud ahaan dowlad deegaanka meelo kala duwan marka aanu fiirino ilaa iyo dhimashada ay 10 qof gaarayso oo 5 ka mid ah laga soo sheegay magaalada Jigjiga 2 qof meydkooda waxaa la sheegayaa in ilaa iminka uu yaallo bartamaha magaalada 3 qofna waxaa la sheegayaa meelo kale oo isla magaalada ah in lagu arkay 2 qof ee magaalada bartamaheeda yaalana waxaa la ii sheegay inaysan ahayn dad asalkooda uu Soomaali yahay oo qowmiyadaha kale ay ka soo jeedaan wararka kale waxaa ka mid ah in internetka iyo korontada iyo biyaha intaba laga jaray magaalada Jigjiga marka ma garan doono sida ay xaaladda noqon doonto saacadaha soo socda maadaama biyuhu ay yihiin wax asaasiga ah ee nolosha muhiimka u ah waxa kale oo la soo sheegayaa iyadana inaanu qabsoomi doonin shir ay odayaashu isugu imaan lahaayeen maalinta bariya inkastoo laga yaabo shirka inuu dhaco haddana ilaa iminka waxaa la leeyahay sansaante shirkaas uu ku dhici lahaa ma muuqato mushkiladana waxaa la sheegayaa inay bilaabatay saacadu markay ahayd 8 markaasoo xubnaha baarlamaanku ay isu soo diyaariyeen inay ka qayb galaan kulan baarlamaanku uu yeelan lahaa oo aan caadi ahayn mushkiladda waxaa wax laga saarayaa kulankaas mid ka horreeyay oo xalay dhacay laakiin ilaa iyo inta aan ognahay waxa ay tahay in saaka lagu waabariistay askar military ah oo xiray baarlamaanka iyo xarumo kale oo dowlad deegaanka Soomaalida ku yaala ciidankaas markii dambe waxa ay ku soo mareen wadada weyn ee magaalada dhexmarta waxaana iska hor yimaadeen dadkii magaalada kuwaas oo burar iyo dhagxan ku bilaabay goobjoogayaal waxa ay BBC-da u sheegeen in askartu ay kala carartay rabshadihii markaa ka bilowdayna magaalada oo dhan ay ku faafeen waxa kale oo goobjoogayaashu ay sheegeen in la bartilmaameedsaday hantida dadka aan Soomaalida ahayn ee Jigjiga ku nool markii hore kuwaas oo naftooda la baxsaday laakiin markii dambe waxaa la sheegay in la isku wada qaaday oo hantidii Soomaalida xitaa lagu daray boqolaal qof ayaa waxaa la sheegayaa in dhaawacyo ayagana ay ka soo gaareen boobka iyo rabshadaha Jigjiga ka soconaya dhismayaal la gubay ayaa iyagana la soo sheegay bangiyadii magaalada qaarkood waxaa la sheegayaa in la boobay ugu yaraana kaniisad la gubay saakay waxaa la soo gaartay madaxweynaha dowlad deegaanka Cabdi Maxamuud Cumar in la sheegay isna xarun liyu boolisku ay leeyihiin inuu joogay xubno ka tirsan xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Ethiopia oo Cabdi Maxamuud Cumar xubin ka yahay qaarkood iyagana Facebook ay ka hadlayeen inkastoo hadaladooda ay u badnaayeen hadallo keen ah dhinaca kalena warar aan la xaqiijin waxa ay sheegayaan in xubno ka tirsan ciidanka ammaanka ay ku lug leeyihiin boobka iyo rabshadaha marka muuqaalka guud marka la fiiriyo tan iyo saakay ilaa iyo waqtigan magaalada Jigjiga waxay u muuqataa in sharcigii iyo kala dambeyntii oo meesha ka baxay oo magaaladu ay ku jirto xaalad fawda ah meel walba waxa lagu arkayaa dhalinyaro qamaamaysa dukaamo la jabsanayo hanti la boobayo garaad kulmiye garaad maxamed garaad dool oo kamid ah cuqaasha ugu sareysa ee dhinaca dhaqanka ayaa baaq soo jeediyay waxa uu ka codsaday dadka inay isdajiyaan hantida dadka aan la boobin dadka aan Soomaalida ahayn iyo Soomaalida xitaa in la nabadgeliyo naftooda iyo hantidooda haddaba arrimahaas iyo qaska hadda taagan ayaa waxa aanu ka wareysanay wasiirka warfaafinta ee dowlad deegaanka Soomaalida Idris Ismaaciil Cabdi Xasan Cali Geelle ayuu u waramay waxaana marka hore uu Geelle weydiiyay wasiirku meesha uu joogo walaal hadda waxaan ku suganaa Jigjiga goobta laga soo galay Karamadan buurta Karamadan dadka yaqaanaan madaxweynihii dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia xagee baad ku ogtahay walaal buurta madaxweynaha Cabdi Maxamuud markan baakaano diray Cabdinuur la wareegay ku jira xilligan waxaana soo gaaraya warar ah madaxweynaha dowlad deegaanka in uu ka baxay madaxtooyada saakayba uusan soo galin uu ku sugan yahay xara liyu boolis ay leedahay isagoo ka cabsi qaba ciidamada militariga arrintaasi ma jirtaa walaal hadda ka soo tagay xagee baa uga soo tagtay xafiiskiisa hadda uga soo tagay saaki ilaa hadda maaragtay magaalada xabad baa ka socota xalay nabad baa lagu seexday shacabka nabada xukuumadda maaragtay shaqadeeda saytay oo ay wadata saakan baa cid walba markay soo kacdo maaragtay guri walba ciidan waysan oo militariga maaragtay hortaagan inay qoriyay wada wataan magaalada dhan ma xafiisyadii goob walba baarlamaankii la hortaagan yahay goobtii maaragtay shirki lagu gelayo si la hortaagan yahay saakan marka dadkii markay soo kaceen maaragtay dad maaragtay aqoonay ku hadlayeen ciidankana maaragtay qaranka wata ayaa
maaragtay meesha ay isku arkay halkii baa maaragtay shacabkii la xabaday dad baa maaragtay dhintay dad baa dhaawaca waan gartay waxaad tiri dhaawac iyo dhimasho ayaa jira dhaawaca iyo dhimashada maxaad noogu sheegi kartaa dhaawaca dhimashada teleexaan hadda uma hay si fiican uma hay maadaama weli xabadan ay socoto oo reportka rasmiga weli maan ay soo gaarin laakiin dad badan oo maaragtay la dhaawacay iyo haween maaragtay waddo taagan oo maaragtay arrinta ay wadaan maaragtay ay kala halgamayaan oo maaragtay ciidanka toos maaragtay xabad ay u dhufanayaan xabadaynaan baa magaalada fawda ka dhacday sidaad sheegaysid waxaad leedahay dhaawaca jira waxaad leedahay dhimashaa jirta arrintaasi yaa ka dambeeyey walaal saan kuu sheegay dad shacab oo maaragtay saaka iyaga dhan la weeraray xafiisyadii la weeraray laamigii wadooyinkii dukaamihii nin walba qoray u wato markii la arkay maaragtay shacabkii iyaga maaragtay ay iska hor imaadeen ciidankana maaragtay sharci darro maaragtay dadku u xadaday waa ciidanka federaalka wax dadka xadaday etoobiya intaan ognahay waa waddan federaal ah dowlad deegaanka soomaalidana ay ka mid tahay dowladda etoobiya ee federaalka ciidamadana waa kuwii federaalka sida aad sheegaysid dawaatan horta arrinta laleeyahay wadanka horta wuxuu ku dhisan yahay dastuur buu leeyahay nidaam federalism ayaa maaragtay ku salaysan yahay dastuurka wuxuu leeyahay weynu mataqaana wax amni darro maaragtay gacanteeda ka baxsan ayaa jirta kaalihii caawe inuu dhaha deegaanka codsada mooyaane ciidan hubaysan inuu maaragtay waa beri oo dad nabada maaragtay dee weerar lagu soo qaado magaalada lasoo galo tan waa sharci darro maaragtay dastuurna ma ogol weligeedna lama arkin oo kolley dadka waxay arkeen qof maaragtay af oromo ku hadlaya dhar ciidan wata waa arkeen muxuu ahaa ciidan dhar military wata wuu soo weeraray sababta dadka shacabka taa u qaateenna uqdud bay u qabeen mar walba maaragtay oo oromada dhibaato inay u geysanaysid ay ogyihiin inay goortay sameyn doonta way ka fikirin jireen cabsi bay ka qabeen meesha aad joogtay magaalada Jigjiga imisa kilomitir u jirtaa waxaa nagu maqaal ah in halkaasi aad u joogtaan in ciidamo ka soo baxay meel kale oo dowladda federaalka oo military ah aad ciidan u diyaariseen oo aad doonaysaan inaad weerartaan markay magaalada soo galayaan warkaasi ma jira maya waxaa jirta wax kale maaha shacabkii wadada maadaama ay xireen ay xanaaqsan yihiin wadadii baan leenahay taan baan usoo baxnay hadda leenahay wadada ka jooga taan baan u yimid shacabka gudaha magaalada Jigjiga oo ay rabshadaha ka dhaceen ayay ku sugan yihiin adigana waxaad leedahay 5 ilaa 6 kilomitir ayaan magaalada u jira marka meeshaasi maxaad ka samaynaysaa taan baan u yimid horta xaaladda jirta xaggana xogkaaga oo u imaado qabileeshan aga dadkana maaragtay maadaama mas-uuliinka kuwa kale ay xaggan joogaan aan la hadlay nin walba mas-uuliin walba waa iskala qaymisooday xaaladan maaragtay dadka in lala hadlo la dejiye xaaladda taa in lagu saleeyo lagu wada hadlo maadaama ay taa go-aan aan ku wada qaadanin cid walba horta taa shaqaa ku jirta annaga taan baan shaqadooda ka mid tahay laakiin way jirtaa soo maaha in buurtaasi aad ciidamo ku diyaariseen oo ciidamo ku sugan yihiin awal magaalada gudaheeda joogay horta ciidan maaragtay buur hadda saaranta ma jiro shacabba hadda markaan kula hadlay shacabkan kasoo leexanaya wadada taagneed oo la hadlay waxaa kaloo jira in la sheegayay in saakayta aad doonaysaan inaad ku dhawaaqdaan in aad ka go'deen Ethiopia inteeda kale ciidamada militarigana ay sidaa usoo farageliyeen arrintaasi ma noo xaqiijin kartaa taa kolley meesha maaragtay haddii ciidanka xogtaas heleena meesha ka keenaan iyagaa garana laakiin soo saan kuu sheegay wadanka nidaam buu leeyahay dastuur buu leeyahay shaqada qaabkan nidaamkaas unbaa lagu socon karaa go'itaaniya fikir nooca toona ma jirin nidaamkii maaragtay xisbigii xukuumadda qaabkay ku shaqaynaysay dowladnimada federaalkun baan aaminsana taan baan nagaan ku soconay go'itaanka haddii lana fikir maaragtay qaldanna ma aha laakiin balse oo wax dastuur ku jira dhinacyo in ka soo horjeeda waxa ay leeyihiin waxani waa naqshad aad idinka ka soo shaqayseen dadka rabshadaha sameeyeyna waa liu boolis aad arka ka bedeshaan aad shacab ka dhigteen arrintaasi ma jirtaa waxaa propaganda waxaan kuu sheegay qof maaragtay daciif oo maaragtay meelaha ka hadla maaragtay mowqif oo lahayn maaragtay xaggaa fadhiyo been uu sheega ma propaganda oo iska sheegana maaha wax la sameeye maaha maada xukuumad ba maaragtay shacabkeeda maaragtay in la xabaday qorshe u sameynay qof rayida maaragtay in la laayo xukuumadda qorshe u samaysanaysa waa tee marka tan completely waa fikir qaldamo maaragtay propaganda ay wadaan kaasi waxa uu ahaa Idris Ismaaciil Cabdi wasiirka warfaafinta ee dowlad deegaanka Soomaalida waxa uu waramayay wariyaha BBC Xasan Cali Geelle